Sheekh Maxamed Macalin Axmed oo ah gudoomiyaha guddiga gacanta ku haya dhismaha wadada isku xirta magaalada Boosaaso oo maanta la hadlayay TV-ga caalamiga ee Somali News ayaa warbixin kooban ka bixiyay halka ay marayso dhismaha wadadaasi. Sheekh Maxamed Macalin Axmed waa gudoomiyaha dhismaha wadada isku xirta magaalada Boosaaso oo ay gacanta ku hayo bal ugu horeyn faahfaahinnaga si halka ay marayso dhismaha wadadaasi iyo xilliga bilowdeen iyo qaabka yahay. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Wadada muddo hal sana baan hawsheeda wadnay waxaana xilligan soo gaarsiiyay oo dib dhacan keenay qalabkii aan u baahnayn oo wadada lagu dhisi lahaa oo shirkadaha ay sugayeen. Alhamdulillah, hadda qalabkii waa yimid, rakibaad baana ku socota, mar dhowna haddii Ilaahay yiraahdo waa hawl gali doona. Laakiin hadda waxaan rabnaa inaan bilowno phase-kii koobaad oo ah wadada in la jarjaro oo la buuxiyo oo la simo, la sii xaaqo, la sii nadiifiyo iyadoo marka siman oo la jarjaray oo la sii buuxiyay oo habaysan in marka laamiga rooga ah la kordhiga ayaan rabnaa. Marka laba phase baan ka kala dhignay. Phase-ka koobaad waa jarjaridda, buuxinta, simidda, hagaajinta, nadiifinta iyo wadada in standardkeedii hore la simo. Phase-ka labaadna waa laamiga rooga ah oo kii airport-ka la dhigay oo kala in la dhigo oo qalabkan casriga ah oo warshadaha oo yimid uu laamiga dhigo. Waxayna noo sheegeen inay muddo yar ku dhigayaan oo maalin iyo labo ay ku dhigayaan ay ku dhameynayaan. Meel fiican bayna hadda noo maraysaa. Maya wadada laamiga hore laga guuri mahayo. Laamiga hore waa meel muddo badan baabuurtu garaacaysay, aad buu u adag yahay. Meelihii go'ay waa la goynayaa, kadibna waa la buuxinayaa. Markii la buuxiyo oo lala simo standardkiisii loogu talagalay sidiisa loo deynayaa laamigaas oo dhan isagoo sidiisii u siman baa laami kale dusha laga sii saarayaa oo ah roog lagu gogolayo. Sheekh Maxamed ayaa sidoo kale ka jawaabay eedeymo ay shacabku u jeediyeen oo salka ku haysa in la musuqmaasuqay lacagihii loogu deeqay dhismaha wadadaasi. Dadweynaha markii horena waa u jawaabay. Qaarkood waxay yiraahdeen lacagta xataa waa la cunay, lacagtii waa haynaa, waxba lama cunin. Dib dhacana sababta waa sheegnay. Injineeradii iyo dadkii shaqada takhasuska u lahaa markii aanu ka wada hadalnay waxay noo sheegeen qalabka wadada aan u baahanahay lagu sameeyo. Ugu dambeyntii Sheekh Maxamed Macalin Axmed waxa uu fariin u diray mudanayaasha baarlamaanka Puntland ee la soo xuli doono isaguna sheegay inay soo xushaan qof hogaamin kara Puntland 5 sano ay soo socota. Cidda bulshadan hogaamin karta muwasafaadka uu leeyahay iyo waxyaabaha looga baahan yahay haday tahay xag aqoon, haday tahay xag karti, haday tahay xag dadnimo, haday tahay xag waayo aragnimo inaan dadka arrimaha ka wacyi gelino ka way anaga doorkayagu. Anagu siyaasiyiin ma nihin, siyaasiyiintana ninna lama safnin. Bulshaduna waa noo siman tahay, waa dadkayagii. Waxna anagu ma doorano oo niman ba wax doorta. Waxaa laakiin qorshahayagu uu yahay nimankan wax dooranaya in la wacyi geliyo oo lagu wacyi geliyo inay dalkooda u heeliyaan, diintooda u heeliyaan, dadkooda u heeliyaan, dollarna aysan qaadan. nimanka inta in lagu wacyi geliyo ilaahayna hawsha ay uga baqaan. Abdulfataax Abdullaahi, wararka TV-ga caalamiga ee Somali News.